musharax baatahay Abdikadir waxaana ka mid tahay dhalinyarada haatan joogta magaalada Garowe caasimadda Puntland Soomaaliya ayaa ku sharaxan tahay maxaa kugu dhaliyay inaad noqotid musharax u taagan xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya معي Abdikadir H Dooy شلون أحسن وما سنتهاي ورن سبعة مشرحناhay يعني كم من نقطة أقلك hoose Baarlamaanka Soomaaliya midda koowaad waxa way horta xaq waxaan leeyahay inaan wax doorto layna doorto waa midda koowaad midda labaad waxa way dastuurka Soomaaliya wuxuu xaq ii siiyay in da'da 25 sano iyo wixii ka weyn inay ka mid noqon karaan aqalada go'aan gaarista ama goobaha go'aanka dalka lagu gaaro taakasi koow waxaan arkaa in burburka wadankan ka dhacay aynu wada leenahay inuu saameyn ku sameeyay dhammaan qaybaha bulshada dadka ugu badan ee uu saameynta ku sameeyay waxa waaye dadka dhalinyarada iyo dumarka waxaan aaminsanahay in 25 sano ugu dambeysay dhalinyaradu ay ahaayeen xaabada dagaalkii horeeyay dabkii baxay inay ahaayeen ma taqaanaa dadkii loo adeegsaday wadanka inuu burburo waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu meeshaas meel aan ahayn ay istaahishay in wadankan dadkii soo xareeyay ay yihiin dad dhalinyaro in shaqada maanta taala ee ay wadankan la daba qabto oo la badbaadiyana ay tahay shaqo u taala dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kaloo ogsoonahay oo idinka ay ogsoontihiin wadankan dadka ku nool 70% inay yihiin dad dhalinyaro ah oo da'doodu ka yar tahay 30 sano dhalinyarada dhibaatooyin badan baa haysto 68% dadka 70% ah 68% waa dad shaqo la'aan boqolkiiba 60 ka mid dadka dhalinyarada ay wadanka majority-giisa waxay rabaan wadanka inay iska hayaamaan waxay rabaan wadanka inay ka tahriibaan marka ku daro arrinta dastuurka markaan ka sheekeynay dastuurku waa wax qoran cid kasta wax akhrisanaya akhrin karto soo wax mala ma aha dastuurka Soomaaliya wuxuu qabaa 25 sano iyo cidii ka weyn inay isku sharaxi karto markaas da'deeda kama sheekeynayno waxaan ka sheekeynay wax dastuurka ku qoran da'deeda waxa laga yaabaa inay taa aad ugu weyn waxa rabo kale inaan ka sheekeeyo waxa weeye way shirkan oo kale aan isugu nimid adduunka wadamada kale shirkan oo kale miyaa la isugu yimaadaa miyaa laga hadlaa dumarku siyaasadda uga qayb qaadan lahaayeen dhalinyaradu si uga qayb qaadan lahaayeen waa may waxa shirka inoo keena waxay tahay dhibaato wadankeena ka dhacday iyo awood aanan u lahayn in cid walba inta is sharaxdo qof walba uu ku qanco sanduuqa wuxuu ka helo anadii maanta ay cod ku ahaan lahaa dadka Soomaaliyeed dabcan halkan ma imaadeen marka hadleen xuquuqda aan u leeyahay inaan ka mid noqdo Baarlamaanka Soomaaliya laakiin maadaama wadanku burburay dumarka iyo dhalinyaradu waxay noqdeen totally exclusive waxay ka noqdeen decision making platforms ki ama meelihii goobihii go'aanka lagu gaarayay wadanka siba baarlamaanka waxa ogtihiin dadka ugu badan ee uu saameynayo shuruucda baarlamaanka soo dejiyana inay tahay dadka dhalinyarada iyo haweenka waxaan aaminsanahay in waxa naga maqan odayaashu waxay ka sheekeeyeen maxaa idinka maqan waxaan aaminsanahay waxa naga maqan inay tahay maadaama dadka dhalinyaradu ay yihiin dad dhalinyaro ah aqoon-yahano ah mushkiladihii wadanka ka dhacay aysa saameyn weyn oo qoto dheer aysa ku lahayn aaminsan maanta waxa ay ka hadlayaan inay tahay siday meelo wanaagsan ugu noolaan lahaayeen caruurtooduna nolol ka wanaagsan tii ay ku noolaadeen si ugu noolaan lahaayeen maadaama ay dad ka fakaraya hooyooyinka iyo dumarkuna ay yihiin dad ka fakaraya caruurtooda iyo caruurta ay dhaleen siday ugu noolaan lahaayeen nolol ka fiican dhibka ay soo martay iyo qaxarka ay soo martay waxa aaminsanahay inay yihiin dadka saxda ah ee ay tahay in masiirka ummadda wax laga weydiiyo waxaan u baahanahay waxa weeye in dumarku ay helaan boqolkiiba 30 loo balan qaaday ay ka helaan dadka kontonka qof ee dooran doona baarlamaanka inay boqolkiiba 30 ka helaan waxaan kale u baahanahay dadka dhalinyarada ah inay boqolkiiba 20 ka helaan dadka wadanka go'aankiisa gaaraya ee xildhibaanka soo dooranaya wadankan aan wada leenahay fursado badan baa soo maray fursadii waa la dayacay mar raba
taariikhda hore inaan ka sheekeeyo laakiin maanta 2016 waxaa la joogaa fursad dahabi ah waxaan u baahannahay inaan ka gudubno sheekadii ahayd caruurta ku korsado oo aan u gudubno yaa wax ina tari kara yaa caruurtan mustaqbal u sameyn kara yaa haa oran kara yaa maya oran kara yaa garanaya waxa laga sheekeynayo waxaan aaminsanahay in maanta maalinta la joogo in 2016 ay tahay fursad dahabi ah oo ay tahay in dadka dhalinyarada ah iyo dumarkaba wax laga siiyo in ganacsatada iyo civil society-ga ergooyinka lagu daro haddii kale aysan waxba uga duwanayn meeshii ahayd odayaashu inay xeer isugu dhigtaan hebel baa maanta la siinaya hebel baa biri la siinaya marka maadaama ay tahay xuquuq dastuuri ah oo qof kasta Soomaaliya uu leeyahay inuu hadduu 25 sano ka weyn yahay xanuunsanayn garaadkiisu dhan yahay dumar iyo rag ku noqonayaba maadaama ay tahay xuquuq asaasi ah uu leeyahay ana waxaan qabaa in aynaan xuquuqdaas aynaan ka gaban ee meelaha saxda ah ay tahay in dadkan ay ka mid noqdaan taasuna ay kow ka tahay dadka ergooyinka soo doonaya